maxamed xaashi dhamac gaariya 1949 ilaa 2012 waxa uu ku dhashay Hargeysa. waxbarashadiisa sare waxa uu ku qaatay magaalada Shaayq. kadib waxa uu galay jaamacadda macallimiinta ee Lafoole. wuxuu macallin ka soo noqday jaamacado kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Lafoole, Camuud iyo Hargeysa. wixii igu yaabka badnaa ee magaranaysaa gaariye kala kulmo waxa ka mid ahay laba sano iga horreeyay aniga xagga iskuulka markaan sandarfoolka soo galay 6 buu nin yar oo gaaban oo daan waa ka dheerahay oo sida odayaasha u hadlaya oo xigmadda iyo waxa uu ku hadlayo aad moodo inuu akhrisanaya xigmadda ilaahay ninkaa uu magaranaysaa bariisadu u hadlayo oday magaranaysaa 40 jir ama 50 jir xigmaddii uu ku hadli lahaa ku hadli gaariye wuxuu ahaa shakhsi hibo u leh sida dadka wax loogu gudbiyo. wuxuu cilmi baadhis ku samayn jiray afka Soomaaliga. ma jiro erey Soomaaliyeed oo ka ku dhamaada ka Soomaaliga ku jiro haka raadinina bug haddaad aragto bug gaabi isu bedelaa meeshu ku dhamaado gaabi isu bedelay waa xurufta isku khaarijta ah ayaa leedahay marka linguistics la hado xurufta qaar baa leedahay isku khaarij marka ereyga ugu makhraj dhow ayuu ku xidhmaa kaadu gaabi isu bedeshaa bug hadduu kuug yahay hebel abay waa kuug baad leedahay kuug buu ahaa abay baad leedahay kuuga baad leedahay isiraac ayuu ku samayn jiray ereyada Soomaaliga. ereyga buuran waxaas hadduu buuran yahay wuxuu ka yimi buur buu ka yimi buur baa ayaa adjective marka loo bedelo buuran bay noqonaysaa marka wax buur u eg buur leeg baa leedahay waxaas uu buuran yahay marka leedahay asalkeedu waa buur weey haddaad tiraahdo waxaas uu badan yahay asalkiisu waa bad badan baa loo leeyahay marka badda ayaa wax badan oo aan la gaar wax weyn oo la gaar hebel uu luutay marka leedahay wuxuu ka yimi halkaas maxaa ku taala luuba ku taala waxa laala wixii halka gala dib loo baarko uu luutay marka gaariye wuxuu ahaa shakhsi gabiga u leh aqoon dheer. gabayaagu wuxuu isticmaalaa su'aalaha uu isticmaalayo wuxuu uga jeedaa aduu su'aalku weydiinaya markuu gabayo miyaanay caynka ahay buu kolaya waxa soo kaxanaysa warkuu ku oran lahaa mee waa caynkaa kugu oran lahaa ayuu ka xishoonaya inuu ku yidhaaho ina cabdilla xasan baa la soo weeraray waxaa weeraray ingiriis dayuuraduu ku weeraray waxaanu arag baa ku dhacay waxaa naftii doontay inay cararto wuxuu siidhi waa sayidka iska dhigi jirtay adoo cararayaa lagu arkay muxuu dee markaa sameeya wuxuu doonay inuu ku qanciyo ku leeyahay wallaahi cararkaygu inaan carara waa daw buu doonaya inuu dhaho markaa wuxuu doonay aduu kaa qayb geliya doonta wuxuu ku leeyaha oo maadayaal qiimayay cadda ka keeneen cirkii iyo dhulkii bay isqabsadeen caleeriqdoodii caabir waa saleelay anaa haatan caymadii adiguba aqlaad leedahe carar maxaa dhaartug markaasoo leysa wallaahi waa iska horayna iska carar wuxuu doonayaa judgment go'aanka ila qaadu ku leeyahay go'aanka miyaanay saxaynaan carraab ku leeyahay aduu kaa qayb geliya foom su'aala buu ku weydiinaya gaariye waxa uu ka mid ahaa guddiga qorista ee af Soomaaliga. marka waxaan guddiga Soomaaliga waxaanu qaban jiray salaasooyinkaanu sugi jiray salaasa walba waa la isu taagin jiray militarigaanu sameeynay darajooyinka gaashaala sare gaashaala dhexe gaabaguud waxaan dhamme waxaas la shaqada xisaabtii terminology oo baarnay waa marka kisiya nabanta yaanu sameeyno kisiya nabanta ila sameeyo tilaba doorshahay xagasha laaban iyo xagasha marka ay bixintaas dhinac laga sameeyay oo degdeg ahayd oo waxa la doonayay wasaaraddu waliba inay ku shaqayso markay wararka isu dirayaan ku socota wareegto ku socota sumajid 00 sumajid ujeedo kaasada ujeedadii qoyska
magarayda ku waa ku socota ogeysiin waxaas ogtahay si aan isku dilabalabeysin ogtahay lay wuxuu ku caanbaxay cilmi baadhistiisii miisaanka maansada oo uu ku soo saari jiray wargeyskii Xidigta Oktoobar. dalka gudihiisa oo kaliya kama wahayn macallin, balse sidoo kale dalka dibaddiisa ayuu wax ka dhigi jiray, halkaasoo markii dambe uu ku geeriyooday gaar ahaan dalka Norway 2012. allaha u naxariistay Abwaan Gaariye. xaquuqda muuqaalka K Media ayaa iska leh, aniguna waa Maxamuud Milano.